dhacdo argagax leh ayaa ka taagan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Aaba Soomaaliyeed ayaa maseer dartiis caruurtii uu dhalay afar kamid ah guri ku soo wada xareeyay isla markaana dab qabadsiiyay. afartii caruur ahna waa ay geeriyoodeen oo nafta ayaa ka baxday. Waxaan rabaa inaan kula wadaago dhacdadan sida ay ku dhacday iyo sida ay aabahan Soomaaliyeed uga suurtowday in afartii caruur ah ee uu dhalay guri intuu ku xiro isla markaana uu dab qabadsiiyo. xogta oo faahfaahsan intaan guda galin fadlan muuqaalkan qabo oo like gare sidoo kale qabo oo share gare si aynu u helno saaxiibo qalbi furan sida adigoo kale aragtidaadan qaybta hoose ee comment-ga noo gurub soo dhawo daawade xogta oo inta ka faahfaahsan ayaan kula wadaagay. magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa ka soo baxaya war argagax leh kadib markii maanta kowdii duhurnimo dhacdo argagax leh ay ka dhacday gudaha magaaladaasi. aaba Soomaaliyeed ayaa caruurtiisa waxa uu ku gubay guri jiingad ah oo ay deganaayeen. waxaa la sheegay in caruurta da'doodu ay ka yareed afartoodaba da'da 10 sano, 3 wiil iyo 1 gabar ayayna ahaayeen. sababta keentay in aabahan caruurtiisa uu gubo ayaa lagu sheegay in khilaaf culus uu soo kala dhex galay isaga iyo xaaskiisa oo markaas suuqa ku maqneyd markii uu dhacdada sameynayay. aabahan ayaa waxa uu qaatay go'aan ah in uu nafta dhaafiyo afartii caruur ah ee uu dhalay. si guud aabahan waxaa la sheegay caruurta uu dhalay inay 5 ahaayeen, 1 gabar oo saqiir ah oo iyaduna markaas naas la nuujinayay ay hooyadu suuqa kula maqneyd, afartii kalena guriga ay uga tagtay. waxa uu na qaaday talaab argagax ku noqotay dadka Soomaaliyeed iyo dadka ku nool magaalada Hargeysa kadib markii uu aabahaasi qolkii jiingada ahayd ee ay caruurtiisa ku sugnaayeen uu dab qabadsiiyay isla markaana halkaas uu ku wada dilay 3 wiil iyo gabadhii saqiirta ahayd ee uu isagu Ilaahay markaas ku arsaaqay ama uu dhalay. hooyada ayaa guriga ku soo laabatay waana ay miir daboolantay kadib markii ay aragtay ciidamada dabdamiska oo meydadka markaas ka soo daadgureynaya qolkii uu markaas aabahan ku gubay caruurtiisa. waxaa la sheegay in aabaha uu dhacdadan ama sababta uu u sameeyay sidan ay tahay inuu aad uga maseeray haweeneyda oo uu qabay isla markaana uu ku tuhmay in ay rag kale markaas ay la hadasho. taasina ay keentay in uu kontarooli waayo dareenkiisa isla markaana shaydaanka iyo damiirkiisa xunba ay siiyeen in uu markaas gacantiisa ku gubo caruurtii uu isagu dhalay. qaarkood waliba marka uu dabka qabadsiinayay waxa ay ku oranayeen oo ay dhahayeen aaba dab ayaa halkan ka markaas holcayo, laakiin iyagu ma ogo in dabkaasi uu markaas odagan dhalay uu rabay markaas inuu afartoodaba uu nafta ku dhaafiyo. Ilaahay ha u naxariisto inkastoo caruurta ay saqiir ahaayeen isagii gacanta ayaa lagu dhigay oo laamaha amniga ayaa